wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya oo soo gaaray magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa kulan la qaatay dhigiisa dalka South Africa Master Fransaman waxa ayna ka wada hadleen sidii ay labada dawladood u yeelan lahaayeen xiriir saaxiibtinimo. wasiir ku-xigeenka dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in dawladdiisu ay garab taagan tahay dowladda Soomaaliya. wasiir ku-xigeenka dowladda South Africa ayaa soo hadal qaaday in dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay kaalin muuqato ka qaadatay sidii heryada gumaystaha looga dulqaadi lahaa dadka reer South Africa, taasina ay tahay mid aan la iloobi karin. Jamaal Maxamed Barrow wasiir ku-xigeenka dowladda Soomaaliya ayaa saxaafadda uga warbixiyay socdaalkiisa dalka Koonfur Afrika. waxay ahayd waxaan aan u yimid South Africa martiqaad aan ka helnay ama wasaaradda arrimaha dibadda South Africa gaar ahaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda. kulanka hadda aan yeelanayna waxay ka jawaabaysay martiqaadkaas ka jawaabaysay si fiican ayaan u wada hadalnay. ayaga waxay noo sheegeen way aragnimadii ay soo mareen markay ka soo baxeen midabta koorka ka soo baxeen 1994 ilaa hadda. waxay noo sheegeen inaan ku sugannahay xaaladaasi mid ka sii xun inaan hadda ku sugannahay. waxay qireen in Soomaaliya markay ku jireen halgankii loola dagaalamayay midabta koorka in Soomaalida aad u caawisay ama dawladdii jirtay caawisay. ayagana hadda diyaar u yihiin in wixii kaga soo aado Soomaaliya inay ku caawiyaan. aad ayaan isu fahamnay waxyaabo badan oo faa'iido badan noo yeelan doono ayay ballan qaadeen. socdaalka oo wasiirku ku yimid magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxa ku weheliyay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka South Africa Danjire Sayid Xasan Shariif. Xasan Kaafi Maxamed Shire, Hon Cable TV, Cape Town.